madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shir jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu kaga hadlay dilka Allah u naxariistay wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis kaasoo nin hubeysan ku toogtay maalintii shalay gudaha magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa tacsi u diray ugu horeyn bahda warfaafinta iyo eheladii sida gaarka ugu baxay marxuumka isagoona madaxweyne Shariif sheegay in laga maarmaan ay tahay in cadaaladda loo keeno gacan ku dhiglihii dilkaasi ka dambeeyay madaxweyne Shariif ayaa carabka ku dhuftay in xil gaar ah ay iska saarayso dowladda ammaanka wariyaasha ka howlgala dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho qaybaha siyaasiyiinta saxaafadda xisbiyada ka jira dalka Soomaaliya haweenka iyo ururada bulshada ayaa dhinacoodana ka hadlay dilka lagula kacay wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis kuwaas oo ku tilmaamay inay tahay arrin lagu afduubayo warbaahinta Soomaaliya waxa ayna ku booriyeen wariyaasha iyo warbaahintuba inaysan kan iyo jabin howlaha ay xilligan u hayaan bulshada Soomaaliyeed dowladda ku meel gaarka ay ka codsadeen inay si degdeg ah cadaalad u horkeento gacan ku dhiglihii ka dambeeyay dilkaasi isla markaana maxkamad la soo taago وما الله ولا صعود طبعا كان نسلي ودم واسيد من تأكل من دائرة بس الموت إلهي ولا كان حرست الجنة هسيو أنا كنا صبر إيمان الله أنا قسيو أنت عسيو درايا أهل كتير وأصل أهل كنتي وعروتي سي يحاسسكي سي يوالدكي يبودهان marka labaad waxaan taasoo daray bahan saxaafadda Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda oo maanta naga wada baxay kulligayaba dan saxufiya oo runtii tiirarkii saxaafadda Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya ku taagneed kamid ah waxaan taasoo daraynaa eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo uu ka geeriyooday wariyahayagii qaaliga ahaa Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis waxaan leenahay jannatul firdaws Allah ka waraabiyo kitaabkaaga midigta Allah ka siiyo gacanka xaq daran baa ku dishay ilaahay casa wajalaha akuugu bedelo naxariis fara badan Allah akuugu bedelo waxaan niga codsanayaa dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed ee jooga inaydaan cabsanin واحد سامر تندبات تنكحن خلينا إلهي سبحانه وتعالى جنة فردوس الله حقريه سبحانه وتعالى ومدى الصوماليين نتمر من الله كسيره إياه الذي يقابل سكريوني حيث وحو كبحي ومدى الصوماليين أردن ويس يقف كليا كما بحين وحو كبحي دمان ومدى الصوماليين هدي أنا يرمها برشادنا حيث يفامل كيسي ووغان دولنا ولا الله سعودنا من على دولة السيين ولدنا waxaa ka codsanaynaa inay macnaha intaas islaamka iska saarin Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis waxa jira la yaqaana dadka iyo sareeyo waxa ka codsanaynaa inay si tafsiyaha badan inta la soo qabtaan anigu waxaan ku dhisay 100 iyo 19 waagaas oo aan ka mid ahaa warwadeynadii wargeyska madax badan ee Shabeelle oo ahaa wargeyska kaliya ee xorta ah ee ka soo baxay Soomaaliya asana wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii qaybta ganacsiga geeska dagaaladii sokay kadib Cabdisalaan wuxuu la shaqeeyay wargeyska dhijiri midnimo kadib uu wareegay idaacadii reer Muqdisho ee koonfurta magaalada Muqdisho dhammaan ruuxa wariyaasha Soomaaliyeed maanta dilka markuu dhacay ma jirin hal qof xal saacad ma jirin sidii la soo wada jeeda maxaa yeelay Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis wuxuu ahaa cornerstone ayuu ahaa gaar ahaan marka haddaan anaga baada caafimaadka runtii mid loo bidoono wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis waxaan ugu duceynaynaa qabriga inuu Ilaahay waasixiyo jazaakumullahu khayran jazaa الله نحرسه مرحوم وريه Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis ayaa maalintii shalay ahaa in hubeysan waxa uu ku toogtay degmada Xamarjab ee magaalada Muqdisho isagoona maanta aad xaram loogu sameeyay magaalada Muqdisho kaasoo ay ka soo qayb galeen baada wariyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la
kadib markii shalay magaalada Muqdisho lagu toogtay wariye Cabdisalaan Xiis Allah u naxariistay ayaa waxa maanta magaalada Muqdisho loogu sameeyay aas qaran oo ay ka soo qayb galeen dhammaan warbaahinta gudaha dalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano siyaasiyiin haween iyo ururo bulsho kuwaas oo dhammaantoodba tiiraayo ka wada muujiyay dilkii shalay magaalada Muqdisho loogu geystay Allah u naxariistay wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis ehelada wariyaha la dilay iyo dhammaan warbaahinta gudaha dalka ka howlgasha ayaa isugu tagay guriga wariye Cabdisalaan Xiis Allah u naxariistay waxaana halkaasi tashi dheer ay ku sameeyeen kadib loo soo galbiyay qabuuraha Sheekh Suufi oo kamid ah qabuurayaasha ku yaala magaalada Muqdisho gaadiid fara badan oo ay wateen wariyaasha ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya iyo gaadiid kale oo ay wateen siyaasiyiintii ka soo qayb gashay aaska ayaa waxay isxirtay dhammaan wadada ugu dheer magaalada Muqdisho waxaana lagu aasay qabuuraha Sheekh Suufi oo kamid ah qabuurayaasha magaalada Muqdisho gaar ahaan qabuurahaas oo dhawaanba lagu aasayay mas'uuliyiintii dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ka geeriyootay waxaana salaadii janaasada ahayd lagula dukaday masjidka ugu weyn magaalada Muqdisho ee masjidka Isbahaysiga halkaas oo markii salaada lagula dukaday kadib lug laga bilaabay ilaa qabuuraha Sheekh Suufina lagu waday meedka iyada oo dhammaan warbaahintuna ay maanta ka hadlayeen dilka loo geystay Allah u naxariistay wariye Cabdisalaan Xiis waxaa magaalada Muqdisho isla maanta soo gaaray madaxda TV-ga Hon Cable kuwaas oo ka yimid magaalada Hargeysa isla markaana lala sugay aasitaanka meedka iyaga oo ka qayb galay aaskii meedka wariye Cabdisalaan Xiis milkiilaha TV-ga Hon Cable Farxaan oo kamid ahaa madaxdii maanta timid isla markaana aaska ka qayb galaysay ayaa waxa uu ka warramay dareenkiisa iyo sida uu arko dilka loo geystay wariyihii ka tirsanaa telefishinkiisa agaasimaha guud ee TV-ga Hon Cable oo kamid ahaa wafdigii magaalada Hargeysa ka yimid isla markaana ka qayb galay aaska wariyaha la dilay Maxamed Cabdi Ilig ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay tacsiin uu u dirayo dhammaan saxaafadda koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee wariyuhu uu u tabin jiray warbixinada kala duwan waxa maanta ka xumay Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis markii ugu horeysay aan arko in meydkiisa soo dul istaaga Cabdisalaan aroo noloshiisa arag oo aan soo istaagin oo aan arag aad baan taas uga xumahay Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis waxaan ilaahay ugu rajaynayaa inuu naxariisto inuu ilaahay u gargaaro inuu ilaahay qabriga u nuuriyo waxaan ku faraxsanahay waan jecelahay inay ku noqoto kelmadda madaxweynuhu yidhi ee ahaa qofka dambiilaha ah ee dilay Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis ee ka gardarnaa sharciga la hor keeno waxaa kaloo aan ku faraxsanahay inay sii wadaan wariyayaasha halkan ku sugan oo dareen qiimo leh oo murugo leh oo farxad leh u muujiyey Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis inuu ahaa walaalkood oo qiimo leh oo qiimo ugu fadhiyey oo kaalin muhiim ugu fadhiyey oo iyaga ka baxay oo bulshadiisa ka baxay sidoo kale ururka saxafiyiinta Nosoj oo qayb ballaaran ka qaatay isla markaana si weyn iyagu u soo abaabulay aaskan qaran ee loo sameeyay Allah u naxariistay wariye Cabdisalaan Xiis ayaa waxa xogyaha guud ee ururka saxafiyiinta Nosoj uu ka warramay dareenkooda iyo sida ay u arkaan dilkan loo geystay marxuum wariye Cabdisalaan Xiis Allah u naxariistay shalay lagu dilay magaalada Muqdisho walaalkeen waa naga baxay Allah u naxariistay adinku waxaan u xuseen kalsooni iyo maanta waxaan rajaynayaa ilaahay ku baryo mid labaad Cabdisalaan waxa shay gacan ka gabdha wadanka waxa ka jira dawladda waxaan ka codsanaynaa in sida waqtiga badan ee cadaaladda u horkeento ninkii kooxihii dilay Cabdisalaan Xasan Xiis oo haddii taas ay noqoto in iska dhaafo sidii yaashii hore loo dilay waxay noqonaysaa in maalin badneed la saaray oo maalin wariye la dilo marka waxaan ka codsanaynaa dawladda milgaarka ah in degdeg ah ay arrintaas ugu wadato muddada 48 saac ee soo socota intaasi kadib ayaa waxa tiiraayo iyo calool xumo ay ka muuqatay saxaafadda gaar ahaan warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya
waa kuwan qaar ka mid ah agaasimayaasha iyo wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho oo ka waramaya dareenkooda iyo siday u arkaan dilka loo geystay iyaga oo sidoo kale tacsi u diraya dhammaan asxaabta wariyaasha ah iyo shacabka Soomaaliyeed waxaana ugu horeeyo agaasimaha koonfurta iyo bartamaha ee TV-ga Universal Ibrahim Maxamed Xuseen JK waxaan ka tacsiyeynaa oo aan ka tiiraanyeysanahay geeridiina xadiidka lahayd ee ku timid walaalkeen Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis oo ka mid ah baahda warbaahinta dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho runtii magac weyn ku lahaa maalinimadii shalayna gacan ka gardaran ay ku dishay magaalada Muqdisho runtii dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya waxaanu ka codsanaynaa in baaritaan dhab ah ay ku sameeyso ayna soo saarto gacan ku diglihii dilay Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis sida wararku ay nagu soo gaarayaan Cabdisalaan Xiis in loo hajabay ayaan loo sheegay ilaa ay haddana dabagal dawladdu kuma aanay sameeynin taas waanu ku codsanaynaa dawladda baahda saxaafadda Soomaaliyeedna waxaan ku boorinayaa maanta midnimada ay muujiyeen inaysan ka soo digin inay ka sare maraan mooye maanta waa maalin murugo leh dabeebahan guduudan oo tilmaamaya nin walaalkeen inoo meesha ka baxay Cabdisalaan Xasan Xiis waa nin wariye qaran ah ama wariye saxaafadda in badan ku soo dhex jiray waxaanu leenahay ehelkii iyo qaraabadii asxaabta uu ka dhintay gaar ahaan bahda saxaafadda aad ayaan uga xunnahay dilkiisa taasna waxay muujinaysaa inaan kulligeen maalin muhiim ay noo tahay aaskan heerka qaran loo sameeyey wariye Cabdisalaan Xiis Allah u naxariistay oo shalay nin hubaysan uu ku dilay magaalada Muqdisho ayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay waxaa ka muuqanayay tiiraayo xoogan kuwaas oo dhammaantood ka wada xumaa dilka loo geystay wariye Cabdisalaan Xiis maxamed Timcade Universal TV Muqdisho لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله kulankan loogu baroordiiqay Allaha u naxariistay wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis oo TV-ga Hon Cable uga hawlgali jiray magaalada Muqdisho shalayna nin ku labisan dareyska ciidamada uu ku toogtay magaalada Muqdisho xilli uu ku howlanaa mihnadiisa saxaafadeed ayaa waxaa soo abaabulay kulankan maamulka TV-ga Hon Cable ee magaalada Nairobi waxaana ka soo qayb galay xildhibaan ka tirsan dawladda ku meel gaarka Soomaaliya wariyaasha ka howlgala magaalada Nairobi iyo mas'uuliyiin kamid ah ururada bulshada rayidka waxaa intii baroordiiqdani ay socotay si weyn looga hadlay dhibaatada xadgudubyada iyo dilalka qorsheysan ee wariyaasha Soomaaliyeed ay la kulmaan iyadoo wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiisna uu noqonayo wariyihii 36aad ee lagu dilo Soomaaliya xildhibaan Qadar Biixi Cali maamulaha Hon Cable TV Nairobi Cabdalla Xaaji Cali iyo Tom oo CBJ ka tirsan iyo Cabdullaahi Xirsi oo kamid ah qurba joogta Soomaalida ayaa ku baaqay in dadkii ka dambeeyay falkan dilka ah dawladdu ay wax ka qabato maadaama lagu tirinayo ninka falkan geystay ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya inuu ka tirsan yahay laguna dilay wariyahan deegaanada dawladdu ay maamusho halkan waxaan tacsiin uga diraynaa ka daalay sheegidda ninkii la dilo inaan la joojin ilaa la soo qabto waa inay barnaamij ka sameeyaan oo la yiraahdo dilkii Cabdisalaan Xiis ninkii dilo wali lama hayo idaacadaha lagu soo qaato wararka lagu celiyo joornaalada lagu dawladdu laftirkeeda waxay dareemaysaa markaas shay waxay ku qasbantahay in talaabo ka qaado dawladda TFG waxaan leenahay hay'adaha amniga haddii aan soo qabanin ninkii dilay ama aadan keenina leano assassination ay ahayd baabuur lagama dhacayn hanti lagama qaadanayn ma ahaynin wax tuuganimo ah oo hantidiisa loo socday waxay ahayd dil assassination oo qorsheysan oo la soo qorsheeyay waa in la soo qabtaa cid ka dambeeyay Xamdi Maxamed Kadiye Universal TV Nairobi